biyaha ka saaraysa wax alla waxa wasakh ku jira magaaladana Boorama sidoo caanka ay ku tahay macdantu Ilaahay ku manaystay dadka badankiisuna waxa laga cawdaa had iyo jeer kaliya xanuunka deemka waxaan u arkay labadaas tumood dumba ku dhex jirtay meesha qasabada biyaha laga gelin halka mar haday wasakhda inta la reebiso waxaan leenahay hambalga diyaarado loo baahnay magaaladu way u baahnayd hambalyaan leeyahay waa arin aan aad ugu dirsanay hadan hadii aad muuqaalkana daawanayso like share siina share gare hana ilaawin inaad subscribe gareyso channelkeena Boorama Kayvers aad ula socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixino iyo dhacdooyinka hadba xiligaasi taagan dhamaan biyaha aad cabaysiyo caruurta kuwa aad ku habayso cilad wixii ka abuurmo inta aad ka caban lahayd caafi filter loogow qalab weeye casriyo runtii ka caawinayo caafimaadka biyahaaga meherada ayaa la elektroonigii soo iibisay qalabyada kala duwan ee elektrooniga ayaa waxay ku soo kordhisay qalab baahi weyn loo qabay kaasi oo loo magac bixiyay caafi filter qalabkan ayaa waxa uu ka shaqeyn doonaa nadiifinta biyaha qasabada isagoona ka reebi doona dhamaanba wixii qashin bir dhagax iyo uskag la socday biyahaasi wuxuuna biyaha ka dhigi doonaa kuwa filter garaysan oo nadiifa munaasabad lagu daafurayay qalabkani oo ka dhacday meherada ayaan la elektroonigii soo barbarka ku haysa xarunta bangiga dhexe magaalada Boorama ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay Cabdiqaadir Axmed Bade isagoona faahfaahiyay faa'iidada qalabkani sidoo kale iyaguna waxa hadalka iska dabaqaatay mas'uuliyiintii kala duwan ee ka soo qayb galay munaasabadani kuwaasi oo bulshadana ugu baaqay inay ka faa'iideystaan qalabkani waxa marti sharafka qiimaha leh xafladan aan ugu daafurayno filterka caafiga ay keentay shirkadda Ayaanle Electronic and Mobile Service runtii waa filter saadarkaysan aad u qiimo badan bulshooyinka Soomaaliland gaar ahaan kuwa gobolka Awdal ay baahi weyn u qabeen filterkan oo aanu ka keenay dalka Talyaaniga wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay oo uu qabanaya arrimo fara badan wuxuu taraya oo uu qabanaya waxa weeyaan biyaha uskaga ayuu ka qabanaya dhamaan sida dhagaxaanta biyaha waxa kale oo ka qabanaya waxa weeyaan milixda biraha ku soo dhuunta kaliyaha caafimaadka bulshada Soomaaliland dadka waxa weeyaan aad buu ugu wanaagsan yahay waa filter baahi weyn loo qabay runtii waxana inoo soo kordhisay Ayaanle Electronic magaalada Boorama goob kasta waa laga helayaa qiimo jaban oo raali geliya ayaan waxa weeyaan ayaan dadka ku siin doonaa insha Allah waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba ku soo dhawaada waxaan hambalyeeynaa meheradan cusub ee uu soo kordhiyay guriga Axmed Bade iyo Ayaanle oo magaceedu yahay waa filter sida aan ka maqlay warbixintiisii biyaha ka saaraysa wax alla waxa wasakh ku jira magaaladana Boorama sidoo caanka ay ku tahay macdantu Ilaahay ku manaystay dadka badankiisuna waxa laga cawdaa had iyo jeer kaliya xanuunka deemka waxaan u arkay labadaas tumood dumba ku dhex jirtay meesha qasabada biyaha laga gelin halka mar haday wasakhda inta la reebiso waxaan leenahay hambalga diyaarado loo baahnay magaaladu way u baahnayd hambalyaan leeyahay waa arin aan aad ugu dirsanay waxaan jeclahay Ilaahay idakii in dadweynuhu ay wanaageeda arki doonaan waxa weey horta dadkeena Boorama gaar ahaan gobolka Awdal iyo nawaaxigeega ilaa Lawicado ilaa Gabiley horta dadkeena inta badan kaliya wada fadhiya waxyaalaha kaliya ay noo fadhiisanayaan kaliya noo xanuunayaana wax kala ma ahay waa biyaha maxay hadaanay dee wasakhaysan ama birtu ay ku jirto ama macdantu ay ku badan tahay marka walaalku kala duwan oo keenay maxay hadaan wixii waxa laga saarayay ee lagu nadiifinayay lagu clean gareynayay horta waa mid alxamdulillah rabbil caalamiin oo Ilaahay baa mahadle mar labaadle waa halkan mahad u jeedinaynaa marka inta badan waxaan u iibsanaa biyo shirkadaheenu inoo soo saareen maanta waxa oo sifaysan oo caagado u qalmo lagu soo shubay maanta waxaan ogaan doonaa reerka dhaniba inay ka nasan doonaan karaatoontii biyaha ee ay soo iibsan jireen kharashka badan iyo koska badan ku kacayay inay kaga nasan doonaan filterka markay galiyaan filterka caafi waayo foostadii dhanayd iyo barkeed jirikaankii dhanayd rabtay inaad biyaha ku shubato markaad halka kaga xidho ee waxa uga sii baxo biyo filteraysan baad cabaysaa oo helaysaa filterkan sida aad arkaysaan wuxuu qabanayaa waxa loo wixii wasakh ahaa biyaha la socday
birtii iyo microorganismka qaarkood xataa u qabanaya. waxa weeye labadaasi sidaad arkaysaan iminka kala muuqata midna waa cadaan midna waaba isbedelayba. biyaha Boorama badanaa waxaa la socda daxal, baambadaha waxaa la socda daxal. qofka gurigiisuu ku xidhanayaa, wuxuu ku xidhanayaa madbuhu ku xidhanayaa, dabadeetana halkaasaad ka cabaysaa biyaha. caafimaadna waad ka helaysaa. wax badan oo bulshadu ay ka cabanaysay caafimaad darrada filtarkaasi wax badan buu ka qabanaya. biyuhu waa labo, kuwa la filtar gareeyo oo ay soo saaraan shirkaduhu iyo kuwa aynu caadi iskaga cabno oo dee chlorinated ah oo shaaba inoo samayso. kuwa chlorinated-ka chlorintale ee shaaba ay soo saarto baa waxaa lagu xidhayaa filtarkan. waxa la wixii markaa macdan iyo minerals iyo bacteria iyo waxaasoo dhan buu ka qabanayaa filtarkan. arrin caafimaadkana aad iyo aad ugu muhiimsan oo kaalin badan ka buuxinaysa weeye. aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa Cabdikariin iyo Maxamed Ayaanle. qalabkani oo dalka dibadiisa laga keenay ayaa waxaa keenay Maxamed Ayaanle iyo sidoo kale Cabdiqaadir Axmed Bade, kuwaasi oo u keenay sidii bulshadooda ay uga faa'iideyn lahaayeen. qalabkana waxaad ka heli doontaa meherada Ayaanle Electronics oo barbarka ku haysa xarunta bangiga dhexe Boorama.